يعدوها. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلام وعن ونكسن بهذا وامو ميديا جنرال إن كسر هذا برامج كإحسان فل أو مركزي برامج امتحانات oo aan ku eegeynay xaaladaha kala gedisan ee ummadda Soomaaliyeed qaarkooda iyagu markaasi la isdhihi karo waxay u baahan yihiin caawinaad waxaan maalmihii ugu dambeeyay aan wadnay howlo aanu markaa ugu hurgaleynay xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed qaasatan qaarka agoomada ah qaarka iyagu markaasi aan haysanin hoyga waxaan noo suurto gashay in aan la kulanno boqolaal dhalinyaro ah oo runtii caawimaad iyo waliba u baahan in garab la siiyo iyadoo aan markaasi aan anaguna bahda wama media hadaan aanu ka doonaynay inaan ajar markaasi kaga helno oo aanan markaa dhaqaale ku raadinaynin ilaahay mahadiisa waxa inoo suurto gashay in markii ugu horeysay aan helno deeq lacageed oo markaasi dhalinyaradan aan horay u soo wareystay soo gaartay taasi oo kaga timid dalka Switzerland deeqdaasi waxay gaaraysaa $50 waxaan jecelahay hadduu ilaahay ka raali noqdo inaan ku wareejiyo dhalinyaradan waa dhalinyaro Soomaaliyeed laakiinse qaarkood waalidiintooda ay dhinteen qaarkood aysan markaa ahayn kuwa awooda waalidiintooda inay waxbarasho markaa ka bixiyaan waxaan ummadda u soo bandhignay xaalka ay ku nool yihiin sida ay yihiin iyo markaa caawimaadda ay u baahan yihiin ilaahay mahadiisa gabar markaasi ku nool dalka Switzerland ayaa iyadu intay damqatay garatay inay walaalaheeda yararka caawiso waxaana markaa ku soo caawisay lacag $50 ah sida idin muuqata lacagtaasina Switzerland inoogu timid waxaana ugu deeqday walaalaheeda marna ay marka waxaan markaasi aad ugu mahad celinayaa inta ka qayb qaadatay faafinta muuqaalka iyo sidoo kale hawsha aanu wadno ah howl ihsaan ah howl garabsi ah waxaan ku sugannahay suuqa weyn ee magaalada dad badan ayaa markaasi aanan la soconin barnaamijka ayaa aad noo dhadhaafaya marka haddii aad aragtaan waa idinka raali garanaynaa waxaan gudagali doonaa dhalinyaradan bal iyagana inay u duceeyaan gabadhaasi waxa uu soo sadaqeysatay waxay u soo sadaqeystay in Ilaahay ugu dhawaato gabadha magaceeda ma sheegayno laakiin dalkaasi ku nooshahay waxaan leenahay Ilaahay khayr ha ku siiyo Ilaahay ha ka dhigo meesha aad ka soo bixisana tu khayr qabta Allah kugu bedelo dhalinyarada iyagana ku wareejinaya oo xaalado kala gedisan oo dhibaato leh ku sugan qaarkood kaba ma wataan ummadda Soomaaliyeed iyo muslimiinta waxa inta badan ay yihiin kuwa isku danqada oo runtii is ogaada dariskoodana ogaada marka bahda wama media waxay inta badan diyaar la tahay in ay markaa ogaato xaaladaha kala gedisan ay ku nool yihiin dhalinyarada hooyooyinka maamooyinka ay cid kasto dhibaataysan waana dul tagi doonaa insha Allah wiilkan ayaan ku bilaabayaa magaciisa anagoo markaasi doonayna in lacagtan waxay u gooyso insha Allah waana wax ugu qabanno عثمان ما شاء الله عثمان برنامجكii ugu dambeeyay waraysiga idin yeeshay idinkii dhalinyaro fara badan way inoo saamixaysa in dhalinyaradii aad u badneed boqol ay ahayd inaan wax gaarsiino gabar Soomaaliyeed ka danqatay waxay soo dhiibtay $50 waxay idin goosanay insha Allah taala waan idin geenayaa muuqaalka iyaduna wuu gaaray hadduu Ilaahay ka raali noqdo gabadhaasi maxaa ugu duceynaysaa maxaa leedahay خالي إلهي رجسي إن إلهي رجسي يا ودعينا آمين إن إلهي إن عرورتي وبركة إن إلهي ودم بدافع إن إلهي ما ركتيو إن مراتك إلهي ذحي إلهي أسهله إن ودعي مراتك إلهي أسهله ما شاء الله أما سنت هاي نكستي أدينا إنه حواي ربنا مطاونية waxbaha shoogin aadi adiga dareenkaada muujinaya adiga oo u duceynaya qofkii abaalkan wanaagsan daqan qaday oo idin dan qaday oo sadaqada idin soo gaarsiiyay anigana wax kale idin kama rabin in kaliya aan bulshada idin bandhigo kadibna aan markaasi ahaataan dad iyagu soo saara runtii waxaan rabaa idinkana dharkan nila gaday ina ilaashatan marka maxaa leedahay gowdi halaas noo sameeyay xisaab falkas ilaahay qirasiyo ilmaha ilaahay oo badiyo wixii muraad ee leedahay ilaahay ha u barkee ما شاء الله umad Soomaaliyeed kale maxaa ugu baaqaysaa oo hadda jaanis haysta oo waliba dad badan ku daawanaya maxallada umad Soomaaliyeed gabadhaas oo wax la qootay hadii ay kan wax ay noogu dari karaan waxbarasho iyo goob ajiifan iyo intaas inay noo sameeyaan
هي أديكم waxaan rabnaa gabadh oo wax noo sadaqaysata muraadkeeda inay hesho ilmahana caruurtana ilaahay u barkeeyo oo wixii ay rabtaan muraadkeedna ilaahay u sahlo وهو ما سنتهاي وكذا مع العلنية وحرب إن شاء الله إن بإذن الله وحي أجويسو درعه إن معركتي أن أجده اللي يردن وحياة بدن أباهين وحبرش أباهين وحباهين إلا عاويو dadaalku oo badan yahay insha Allah mar walbana waxaan ballan qaadaynaa haddaan ahna bahda Wama Media wixina soo gaaro si xalaal ah oo Ilaahay uu noo ogyahay inaan u soo gaarsiino anagoo aanan markaa ka rabin ajir mooyee wax kale ma sha Allah ma santihiin waxaana gudagali doonaa insha Allah iibinta dharka waa isku soo laaban doonaa haddii Allah awood leh uu ka raali noqdo سميع دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا مولانا سميع دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا waayahay waan aad idin salaamaya mar kale saaxiibada nagu xiran bahda channelka Wama Media waxaan wadnay hawshii ahayd inaan dhar u gadno dhalinyarada agoonta iyo masaakiinta isugu jirta oo aan u danqanay walaashana qaliga khayr Allah siiye gabar iyadu ku nool Australia oo lagu magacaabo Zamzam runtii aad ugu mahadcelinayaa dadaalka iyo sharafta iyo sida ay soo wakiishatay waxaana rabaa inaan u sharaxo insha Allah qaabka aan wax u gadnay iyo waxa noo haray insha Allah dharkii ay hadda dhalinyarada saad arkaysaan waxa waay dhar wanaagsan ay wataan kabo wanaagsanna insha Allah waa u habeenay marka biidnillaahi wixii ka dhimanna khayraadka iyo dad kale oo walaalo ah ayaa jira marka Saciid oo ku salaamaya marka koowaad Saciid adiga oo noo soo koobay oo maasan tahay sida noo soo dhaweysay kaga mahadcelinayna waxa noo sharaxdaa bal dharkan inta qiimaha ay noogu fadhiyaan macalkabaha نيو سكوتشوكي وحنا وفريا العوا يرى معنا ما دام ما يركع غير ولا شيء استراليا جوجتي كسوس بس العق انا كنا صدقه قيب بان كقادناي سكوتشوكي ما دام لقيت 8 6 دبل قلت انا waxaan kasii 8 دولار على joog ما شاء الله 8 احنا قلنا 39 كبا انا wax laga siiyay 6 دولار labada joog midkiiba 2 دولار waxay noqotay lacagtaas waxay noqotay waa lacag gaarayso cadadeeda lagu dar 6 دولار lagu daray 39 waa 45 دولار waxa ku dartaa 1 دولار bar oo soonkaas wiilkaas loogu soo gaday waxa markaas 40 دولار 40 waxay noqonaysaa 6 دولار bar waxa u soortay lacag 3 دولار lacagta 1 دولار ay dhigtay sameeyna markaas waxay barna waa kan loo sarifaya hadii ay ka yeelisnaan insha Allah loo sarifaya gacanta ka saaraysa biidnillaahi taala sidii muuqata aad u mahadsantiin dawladasheen qaliga ah lacagtii amaanada ahayd sida noo soo gaarsiiyay oo noo soo wakiishay ayaanu wadadeeda waafajinay waa mahadsantiin hadii aad markaa aad tahay daawadaha isagu markaa nagu cusub fadlan channelka subscribe saar like saar share-na markaa sii dheh waad ku mahadsantiin daawashada muuqaalka channelka Wama Media xabadena qaliga ah wali waxaad daawanaysaan barnaamijka Ixsaan Fal qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkan marayna lacagtii ugu dambeysay 3 دولار bar iyadoo shan Soomaaliya ayaanu siin doonaa walaalahayna qaliga ah caruurtayna aad ay u mahadsan tahay in qof kasta oo ka qayb qaatay share gareynta barnaamijka iyo waliba iyadoo aan barnaamijyadan noocan oo kala insha Allah aanu si kordhin doono oo aan ku mahadsantiin sida wanaagsan ee wacaneed nala socotaan salaamaya maanta waad faraxsan tahay okay maxalka insha Allah inta kugu soo aadan siinaya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
toddoba sideed sagaal toban kow laba saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal 9,000
Show. Labo, saddex, afar, shan, lix, toddoba, sideed, sagaal, toban. Kow, labo, saddex, afar, shan, lix, toddoba, sideed, sagaal. Adigana kow, labo, saddex, afar, shan, lix, toddoba, sideed, sagaal, toban, kow iyo toban, laba iyo toban, afar, shan iyo toban, lix iyo toban, toddoba iyo toban, sideed iyo toban, sagaal iyo toban, labaatan, labaatan kow, labaatan labo, labaatan saddex, labaatan afar, labaatan shan, labaatan lix, labaatan toddoba, labaatan sideed. Ku shilin lagu dheeriyaa ku shilin lagu dheeriyaa ku shilin bacaa lagu gaday ya okay hada uma hasantiin ma wax problem ma caadi waay lacagtiin haysta jeebkiin ku xareysta lacagta waxa waaye dhaqaaleysta dharkiin dhaqaaleysta waxa waaye insha Allah mar kasta oo aan maaragtayo aan wax soo helo oo dadka walaalihiin wax idin kaga soo helo sadaacada oo saafi ah idin ku keenaya insha Allah u mahad celiya gabadha saacadi ah waa u mahad celinayaa gabadha maanta oo dharkiyo shaatigana siisay ilaahay u mahad celinayaa ilaahayna khayr Allah siiyo gabadhaas ilmaheedana ilaahay uu koriyo insha Allah ayaa digana anigana waxaa ugu mahad celinayaa ilaahay khayr siiyo ilmaha ilaahay uu barkeeyo waxayna siismay wax fiican ilaahay siiyo ayadana amiin intaas ugu mahad celinayaa ma sha Allah maastan ayaa gabadhi oo maanta dharka iyo shaatiga suwaalka noo gada waxaan u mahad celinaynaa in waxa muraadkeeda ilaahay u sahlo waxa ilmahana ilaahay u barkeeyo intaas oo u mahad celinayaa waayahay maasha Allah ninkan wuxuu ka mid yahay daawadayaashii qaaliga ahaa oo runtii aanu markaa xitaa uusan kaba haysanin maanta wada arkaysaan siday u qurux badan yihiin dhammaantooda ilaahay mahad iska leh ka sokow gabadha iyadu markaasi jeclaystay walaalaheeda ay caawisan aad ay u mahadsan tahay maasha Allah qof kastana waxa uu dhigto ayuu leeyahay abaal ahaato ama xumaan ha ahaato marka ilaahay waxaan ka baryaynaa qof kasto muslim ah dhibaatada haysata inuu ilaahay ka dulqaado walaashan Zamzamna aadan ugu mahad celinaynaa sida wacan iyada oo kaga soo jawaabtay baahiyaha gaarka ah dhalinyaradan da'da yarka ah jiilka mustaqbalka ah sida ugu soo jawaabtay waan ugu mahad celinayaa ajar iyo xasanaad alla soo koobi karna Allah siiyo waxaana guud ahaan halkaas ku soo afmeerayaa barnaamijkeeni Ihsaan Fal barnaamijka intuu soconayay waxa ii tabinayay anigoo ah Maxamed Ibrahim Karama Ibrahim ayaa dhanka kaamirada iga caawinayay tani kulanti dambe saaxiibada qaaliga ah waxa idinkaga tagnaa sida iyo amaana Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh سمع دعانا